Hay'adda madaxa bannaan ee kormeerta booliiska ee la yiraahdo IPOA ayaa sheegtay inay heshay dacwad ka dhan ah Dable Axmed Rashiid kaas oo maalin cad laba wiil oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ku toogtay bartamaha Islii ee magaalada Nairobi bishii Maarso 2017. Labada wiil ee la dilay ayaa ahaa kuwo aan hubaysnayn markii si arxan darro loogu toogtay bartamaha xaafadda Islii iyadoo looga shakisan yahay in faldambiyeed ay ka geysteen gudaha xaafadda. 5 sano ee la soo dhaafay baaritaanka dilkooda ayaa hakad galay inkastoo si weyn loogu ogaa inay dil u geysteen askar ku sugnayd saldhigga Bangani ee booliiska. Gudoomiyaha hay'adda madaxa bannaan ee kormeerta booliiska waxa ay sheegtay in askarigan lagu soo oogi doono dacwadda dilka loo haysto. Waxa ay tiri haweeneydani hay'adda madaxa bannaan ee kormeerta booliiska ayaa soo gabagabaysay baaritaanka dhimashada Jamaal Maxamed iyo Maxamed Daahir kadib toogasho ka dhacday xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxaana la ogaaday in dhimashada ay ka dhalatay dilka uu booliisku u geystay ayay ku soo gabagabaysay hadalkeeda. Waxa la xiriiriyay dhowr dil oo kale balse weligiis laguma soo oogin dacwad ka dhan ah dilka. Dable Axmed Rashiid ayaa la og yahay inuu baraha bulshada uga hanjabay shakhsiyaad uu sheegay in ay sharciga baalmareen. Tallaabadan ayaa waxa ay daba socotaa baaritaano bilo ay waday hay'adda madaxa bannaan ee kormeerta booliiska oo ay ku samaysay natiijooyinka uu hadda taageeray xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Kenya. Dable Axmed Rashiid ayaa la rumaysan yahay inuu ka mid ahaa koox booliis ah taas oo loo yaqaano Bangani Sigis kuwaasi oo ammaan iyo cambaaraynba kala kulmay dadka Kenyaanka ah sida ay ula dhaqmeen kooxaha dambiilayaasha ee ka dilaacay Nairobi. Saraakiishan ayaa lagu soo eedeeyay inay geysteen dilal sharci darro ah dilal ka dhacay 5 sano ee la soo dhaafay Nairobi taas oo lagu soo daray baaritaan ay samaysay BBC-da qaybteeda la yiraahdo Africa ee 2018. Arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa toddobaadyo kadib markii dawladdu ay ku dhawaaqday inay kala dirtay koox caan ah oo lagu eedeeyay dil baad iyo afduub loo geystay kumanaan Kenyaan ah. 11 sarkaal oo ka tirsan qaybtaasi ayaa wajahaya eedeymo dhowr ah kuwaasi oo maxkamadda la hor keeni doono. Dambiyada loo haysto waxaa ka mid ah 2 muwaadin oo Hindi ah iyo darawalkoodii oo la waayay.